بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر كمادة فرمكولوجيا maanta ciwaanka noo qoran waxay tahay ama daawada aan qaadan doono waxay tahay amoxicillin insha Allah ayaan qaadan doonaa. waa daawo antibiotic ah ama kamid ah daawooyinka qalajiyaasha ugu xoog weyn loo isticmaalo cudurro aad u kala duwan. casharka waxaa idin soo gudbinaya anigoo ah Ustaad Cabdiwahaab. channelka haddii aad ku cusub tahay waxaa inoo saartaa subscribe si casharada kusoo gaaraan. haddaadan ku cusbeen u share asxaabtaada kale si ugu faa'iideystaan insha Allah cilmiga ama maadooyinka aan soo gelino misna aan soo dhigno channelka. maanta kaniiniga noo qoran waa kaniini aad u baaxad weyn ama aad u isticmaal badan ama aadkay u isticmaalaan dadka markaasi. kaniinigan waxaa loo yaqaanaa amoxicillin. brand name-keedana waxaa la yiraahdaa misna ay tahay amoxil. waxayna markaas ay ku imaan karaan kaniinigani amoxicillinka waxay ku imaan kartaa kaniini oo tablets ah oo waliba wuxuu noqon karaa 250 mg ama 500 mg. sharoobo syrup ah 125 mg ama 250 mg ah. cirbad injection ah 500 mg misna 1000 mg ayay ku imaan kartaa daawadani. indication-ka maxaa loo isticmaalaa daawadani? daawadani waxaa loo isticmaalaa bacteria infection-ka ah waxaana markaas lagu daaweeyaa qaybo badan oo ah waxyaabaha ay sababto bacteria-da sida waxa kamid ah waxyaabaha loo isticmaali kara daawadani. number 1 waxaa ugu horeeya qoomanka tonsillitis-ka. qofka marka qoomanka ay xanuunaan oo kale waa lagu daaweeyaa amoxicillin-ka. waxaa kaloo kamid ah burkiitada. waxaa kamid ah qaarjeexa ama cudur ku dhaca dhuunta. sidoo kale waxaa kamid ah jabtada gonorrhea iyo pneumonia iyo bronchitis. intaas baa loo isticmaali karaa. caabuqa dhagaha ear infections way keeni karaan. sidoo kale caabuqa sanka nose infection-ka. caabuqa cunaha throat-ka waa lagu daaweeyaa. sidoo kale caabuqa maqaarka skin infection-ka waa lagu daaweeyaa. sidoo kale caabuqa kaada haystay oo loo yaqaano urinary tract infection-ka waa lagu daaweeyaa oo loo soo gaabiyo UTI ayaa loo soo gaabiyaa urinary tract infection oo ah cudurrada ku dhaca habdhiska kaada mareenka gaar ahaan qaybta infection-ka ayaa lagu daaweeyaa. marka daawadani loo yaqaano amoxicillin-ka waa daawo markaas intaan cudur lagu daaweyn karo iyo dhammaan waxyaabaha ay bacteria-da ay sababtay intaba. amoxicillin-kana waa daawo markaas ugu xoog badan daawooyinka bacteria-da lagu daaweeyo ay ugu xoog badan tahay. dosage laga qaadan karo maxay tahay marka qiyaasaha la siin karo dadka maxay noqonaysaa? qiyaasta la qaadan karo waxay tahay daawadani waxaa la siiyaa caruurta yaryar iyo dadka waaweyn way qaadan karaan. dadka waaweyn waxaa la siin karaa 500 mg 8 saacba mar ayaa la siinayaa. marka dadka waaweyn waxaa la siinayaa 500 mg oo 8 saacba mar la siinayaa. caruurta yarna waxaa la siinayaa 250 mg 8 saac mar ayaa la siinayaa. sidoo kale kadib ayadoo markaas loo fiirinayo da'da canuga iyo qiyaasta daawada loo isku fiirinayaa. markasta waxaa la ogaanayaa ama la fiirinayaa waxay tahay yeerka qofka intuu leeyahay iyo sidoo kale kg-ga ayaa aad la sii hubiyaa marka qofka daawo la siinayo iyo inaa hubi sidoo kale cudurka hayo qofkani cudur sax ma yahay. side effect-ga ama markaas saameynta daawadan ay yeelan karto waa maxay? dhibaatada ay keeni karto waxaa kamid ah daawadani dhibaatooyin kala duwan ay mararka qaar keeni kartaa. waxaana kamid ah calool xanuun afka oo markaas qaalo qofka. waxaa kaloo ayadan dhici karto daciifnimo wareer lalabo iyo sidoo kale waxaa dhici karo in matag in qofka inta daawada ay socoto in lagu arko. marka calaamadahan waa calaamado soo muuqanaya daawada markay socoto laakiin daawada markay la joojiyo oo qofka daawada u dhamaato qofka sidiisii ayuu kusoo noqonayaa. how drug work sida qaababka daawada u shaqeyn karto. daawadani waxay xanibtaa bacteria-da darbi unugeedka mana awoodeyso inay isbadiso ama ay faafto labadaba. stroke keedinta qaabka lagu keedin karaa daawadani. keedinta daawadani waxaa muhiim ah in lagu keediyo meel aad u wanaagsan. daawadan markaasi ku keedi meel heerkulkeeda uu markaas uu u dhaxeeyo 25 degree oo halkaasi waa 25
degree centigrade waaye 250 ma ahan 25 degree centigrade ayaa loola jeedaa ilaa markaasi 30 degree centigrade ayaa lagu keedin karaa marka waa qaabka lagu keedin karo ama meesha loo isticmaali karo daawada waaye ama ka yar waa loo isticmaali karaa laakiin daawadan lama dhigi karo qolkiis aad u badan yahay ama ka samaysan jeengado iyo waxyaabahaas haddayse meel qabooban aysan ahayn laakiin haddii qolka uu aad u kulul yahay degreegana intaan uu ka badan yahay daawada laguma keedin karo sababtoo daawada waxaa ka yaraanayo mase ka dhacayo kiimikadii daawada ee lahayd kiimikadaasna uma baahna wax kul ah kiimikaas waxay u baahan tahay heerkul qabooban u baahan tahay heerkulkaasoo gaarayo 30 degree ama wuxuu gaari karaa qiimo ahaanteeda 25 degree wixii ka badan laguma keedin karo overdose haddii qofka la siiyo qiyaas badan maxaa dhici kara marka daawadan oo qiyaas markaas la iska badiyo qofku wuxuu dareemi karaa lalabo matag shuban murqaha markaas oo daata iyo qalal ayaa qofka lagu arki karaa haddii qofka la siiyo wax loo yaqaano overdose oo qiyaasta qofka laga badiyo drug interactionska daawooyin markaas aan la qaadan karin ma jiraan daawadani loo yiraahdo amoxicillinka daawadani hal isticmaalin daawada loo yaqaano sulfasalazine lama qaadan karo sidoo kale lama qaadan karo clostridium labadaas daawo hala qaadanin daawadani disease interaction ma jira cudur markaas lid ku ah cudur daawadani cudurada lid ku ah waxaa kamid ah allergic in qofku markaas xasiidu qabo kale neefta way keeni kartaa iyo sidoo kale wadna xanuunka waxay ku tahay disease interaction ku tahay daawadani contraindication daawadan qofka aan la siin karin waa la siin karaa hooyo uur leh wax dhibaato ahna uma yeelan karto ama uma laha haddii laga qaato qiyaas saxan oo markaas ku haboon hooyada uurka leh way qaadan kartaa daawadani wax saameyn ahna markaas kuma keeni karto marka intaas inaad fahanteen waan filayaa casharkii ka hadlayay daawada loo yaqaano amoxicillinka halkaas uu ku ogyahay insha Allah taala ardada waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin sida wanaagsan oo casharada ula socotaan iyo maadada pharmacology-ga qaybta online ku baranayo ardada kale ee nagala socoto qaybta YouTube-ka oo casharada qayb loo soo gelinayna aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.